الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan salaamayaa ummadda ku nool Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo Soomaali weynba. waxaanu rabnaa saxaafeedkayga wuxuu daaran yahay gobolka Sool. saaka waxaa soo weeraray nabadiidkii SNM afarta koona way ka soo weerareen ciidankii ku jiray magaalada Sool iyo Sanaag iyo Caynna difaac ay u galeen. waxaanu ogeysiinaynaa gobolada SCC deegaankeeda meel kasta lagu nool yahay nimanka soo weeraray deegaanka ayaan waxba ka haysan in gurmadka ugu ballaaran la soo fidiyo. annagu degmada haddaan ay kala beer gurmadkii ugu tagay waxaan ku codsanaynaa gobolada iyo area inta ku nool gurmadka sida waxa dhaqsaha badan inay u soo diraan si ay uga safayno gobolka Sool iyo hareerihiisa nabadiidka ku sugan. waa idin salaamaya. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan salaamayaa dadka islaamka ama Soomaaliyeed meel kasta ha joogo. waxaanu sheegaynaa oo saaka hadeerna soo saaray nimankii SNM nabadiidka ah inay soo weerareen sidii awalba la filayay gobolka Sool oo ismadii iyo xaajadoodii u fadhiya soo weerareen oo ay afarta koonaba ka soo galeen laakiin jilibka loo dhigay durba waa la jabiyay qoraantoodii laakiin way soo gurmanayaan ilaa Hargeysa ilaa bari wixii jiray way ku soo socdaan. waxaanu u sheegaynaa dadkii SSC waa la filayay hawsha tan in maanta ninna uu soo xidib u dhigan hadeer ay leedahay wax doorkan ay leedahay inaanu nimanka iska safayno sidaas aad ku talagelaysaan ninkii dadka dhiigiisa lahow. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. waxay la tahay gardarro qaawan bay ku soo qaadeen saaka gobolka Sool SNM. waxaan u sheegaynaa Soomaali gardarrada waxaan jilibkana loo dhigay hadda meel fiican bay maraysaa. waxay la tahay ninka dalka lahun baa haraya Soomaali dadkoo dhan waxaan u wada sheegaynaa gardarrada qaawan ku soo qaadeen saaka garaadadood iyo xaajadii oo lagu jiro ayaha iyo masiirka laga tashanayo waa gardarro qaawan awalna waa la filayay. waxay la tahay ninkii dhoof ku yimi waa geerad u dhibaysaa.